waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efamyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana cinwaankeennu waa bbcsomali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal qodobada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shir dhuxusha looga hadlayo oo muqdisho maanta ka furmay in ka badan 8 milyan oo geed oo dhuxul ah ayaa 7 sano ee u dambeysay la gooyey. Vladimir Putin oo markii afraad oo xiriir ah loo dhaariyay madaxweynaha Ruushka gabar abwaanad ah oo laga soo daayay xabsiga magaalada Hargeysa kadib markii ay cafis heshay. Chelsea oo xalay ku tumatay kooxda Liverpool haweenay u soo taagnay dilka 300 oo qof dacwad kufsi iyo dil la xiriirta oo dalka Hindiya ka abuurtay muran aad u xoogan mooyaalana wali waxa ku dagaalamaya Oromiya Soomaali. Oromo iyo Soomaali isku dagaalamayaan kulaal isku dagaalamaya waa dagaalkii soo jireen waa ilaa 9 bilood laga joogo jidkii u socda Disababa Soomaali ma mari kartid marka qof Soomaali intaas jid lagu gubay gawaarida lagu gubay waa la dhacay. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdi Fataax Cagayare anigoo Catoosh ahna waan idin la socodsiinaya. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida maantana diyaar waxa la ah Firdawsa Maxamed Cilmi. mahadsanid cabdirasaaq shir soconaya 2 maalmood ayaa ka furmay magaalada muqdisho ee Soomaaliya kaasi oo diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka ka dhashay geedaha la jaro ee dhuxusha laga sameeyo. hay'adda qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay lacagta ka soo xarooto dhuxusha la dhoofiyo sanadkii in ka badan 100 milyan oo dollar waxa ayna sheegtay hay'addu in qayb ka mid ah lacagahaasi ay gacanta u galaan xarakada al-shabaab ee Soomaaliya. Vladimir Putin ayaa loogu dhaariyay markii afraad xilka madaxweynenimo ee Ruushka xaflad ka dhacday aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin. khudbadii uu ka jeediyay xafladda cali masaarkiisa ayuu Mr Putin ka sheegay inuu doonayo inuu horumariyo nolosha dadweynaha isaga oo xoogga saari doono waxbarashada iyo caafimaadka. waxa uu sheegay Vladimir Putin in hawshaasi ay qayb ka tahay waajibaadkiisa loo doortay si loogu xaqiijiyo dadweynaha mustaqbal nabdoon oo barwaaqo ah. Putin oo la hadlayay dadweynaha ayaa intaasi ku daray in horumarinta nolosha dadweynaha caadiga ah uu diiradda saari doono 6 sano ee soo socoto. развитие всех наших регионов. si wada jir ah ayaan uga guulgaari doonaa qorshayaasha aan dib ugu dhisayno magaalooyinkeenna iyo deegaanadeenna si ay u horumaraan dhammaan gobolladeenna. waxaan xoogga saari doonaa siyaasadaha bulshada ee waxtarka u leh aadanaha oo dhan iyo qoys kasta oo Ruush ah. повышать качество образования и здравоохранения. wasiir ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga yaabo in ay disho madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad haddii uu sii wado inuu u ogolaado xoogaga Iiraan in ay ka howlgalaan dalkiisa. wasiirka ayaa sheegay haddii Iiraan ay awood u yeelato inay Suuriya ka soo weerarto Israa'iil in Mr Assad laga taqalusi doono maamulkiisana la burburinayo. Iiraan ayaa ka gacan siiso xukuumadda Suuriya la tacaalida dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka soconaya. natiijooyin aan rasmi ahayn oo ka soo baxaya doorashadii Lubnaan ayaa muujinaya in kooxda hubeysan ee Xisbullah iyo axsaabta siyaasadda ee uu isbahaysigu kala dhaxeeyo ay ku guuleysteen in ka badan kala bar kuraasta baarlamaanka. wasiir ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in quwaddan Xisbullah ay caddeyn buuxda u tahay in dowladda Lubnaan iyo Iiraan uu taageerto Xisbullah aanan la kala saari karin. ugu dambeyntiina booliiska bariga dalka Hindiya ayaa sheegay in gabar 17 sano jir ah ay aad u liidato caafimaad ahaan kadib markii la kufsaday dabna la qabadsiiyay. waa kiiskii labaad oo noociisa uu ka dhaca maalmo gudahood gobolka Jaharkhand ee dalkaasi Hindiya. gabar kale oo 19 sano jir ah ayaa waxa iyana nin uu ku haysta guri ku yaalo isla gobolkaasi Jaharkhand. cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay Firdawsa Maxamed Cilmi. hagaag muqdisho shir 2 maalmood socon doona oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka dhashay geedaha la jaro ee dhuxusha laga sameeyo ayaa waxa uu ka bilowday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. dhuxusha ayaa laga shidaa gobolka Geeska Afrika sidoo kalena si weyn looga dhoofiyaa dalka Soomaaliya.
iyadoo geedaha la jaro ee dhuxusha laga sameeyo ay dhibaato weyn ku keeneen deegaanka ay dhanka kalena dhaqaalaha ka soo baxana waxaa lagu sii huriyaa colaadda Soomaaliya wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa qadka si toos ah hadda ugu jira oo la socday shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay Ibrahim إبراهيم هداد إما قشبل نوغا ورن شركاسي إيا وحيابيه لوغا هادلي ألو إبراهيم هداد إما قشو إن وحيابيه لوغا هادلي شركة جيدها لجرى إيا نحول شبل نوغا ورن عطوش شركة waxaa furay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamuud Guuleed waxaana diiradda lagu saarayay ka ganacsiga sharci darrada ah dhuxusha iyo sidoo kale jarista dhirta Mahdi Maxamuud Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalku waxa uu sheegay inaanay qarsoonayn dhoofinta dhuxusha ka socota Soomaaliya oo sheegay in loo dhoofiyo wadamada ay kamid ka yihiin Khaliijka iyo Iran wuxuu sheegay in dawladdu ay soo saartay xeer mamnuucaya arrintaas wuxuuna sheegay inay fulin doonaan xeerkaasi golaha wasiiradu laba wiil ka hor wuxuu soo saaray go'aan adag oo lagu mamnuucayo dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo wadamada goolofka Iran in la fuliyo shuruucda hore u jirtay iyo go'aanka qaramada midoobay ee mamnuucayo dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha go'aanka golaha wasiiradu waa la fulinayaa waanu meel mari doonaa laakiin waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha iswada qabsanno ma qarsoona dhoofinta dhuxusha Soomaaliya laga dhoofinaya wadamada Iran iyo gacanka Carbeed loo dhoofinaya waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed iyo maamuladaba in si wada jira looga wada hortago dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamuud Guuleed shirka waxaa ka qayb galaya khubaro dhinaca deegaanka ah oo ka kala timid gudaha iyo dibadda wadanka sidoo kale waxaa joogay madax sare oo ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay waxaa ka mid ahaa Peter de Klerk oo ah isuduwaha gargaarka bini'aadanimada qaramada midoobay ee Soomaaliya mar uu halkaas ka hadlay wuxuu sheegay inay wali socoto goynta dhirta iyo ka ganacsigeedaba wuxuu sheegay in sodonkiisa kanba hal geed la jaro Soomaaliya Between 2011 and 2017, 8.2 million trees were cut down to make charcoal. intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2017 waxaa la jaray 8.2 milyan oo geed si dhuxul looga sameeyo soddonkii ilbiriqsiba geed dhuxul laga samaynayo ayaa gudaha dalka laga jaraa ka ganacsiga sharci darrada ee dhuxusha waxa ay sii hurinaysaa ammaan darrada iyo colaadda Soomaaliya waxay kaloo sii hurinaysaa xiisadaha ka dhaxeeya qabaa'ilka ee salka ku haya maamulka dhulka iyo ganacsiga waa meesha dhaqaalaha ugu badan ay ka helaan maleeshiyaadka iyo kooxaha argagixisada sida al-shabaab oo canshuur sharci darra ka qaada dhuxusha la dhoofinayo waxaana lagu qiyaasaa in ganacsiga dhuxusha uu shabaab sanadkiiba ka helo ugu yaraan 10 milyan oo dollarka Mareykanka taasina waa sababta golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo 2012 u mamnuucay ganacsiga dhuxusha dhibaatada ka dhalatay ka ganacsiga dhuxusha ee saameysay deegaanka ayaa waxay ka qayb qaadatay abaarta daadadka xoolaha oo baaba'o iyo cunayarida oo sii korortay contributes to drought, as I said, flooding, the loss of livelihoods and increase in food insecurity. kaasi wuxuu ahaa Peter de Klerk dadka shirka isugu yimid dhammaantood waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii xal wada jira loogu heli lahaa joojinta iyo ka ganacsiga dhuxusha agaasimaha Afrika ee hay'adda deegaanka ee qaramada midoobay Mrs Juliet oo iyana halkaasi ka hadlaysay ayaa waxay sheegtay in hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladda federaalkuba ay sameeyeen qorshayaal wada jira oo la rabo in wax looga qabto joojinta jaridda dhirta iyo ka ganacsigeedaba The Somali government-led event today aims to urgently build strategic partnership amongst consumer countries. munaasabadan ay maanta hormuudka ka tahay dawladda Soomaaliya ayaa looga gol leeyahay in si degdeg ah ay wada shaqayn istiraatiiji ah u yeeshaan dalalka dhuxusha shita deeq-bixiyayaasha khubarada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxaa sidoo kale looga gol leeyahay in taageero buuxda loogu helo tallaabooyinka looga hortagayo ka ganacsiga sharci darrada ah ee dhuxusha iyo xoojinta qaababka kale ee hadda lagu bedelayo nolosha dadka iyo in Soomaaliya laga helo tamar bedeli karta dhuxusha and alternative energy sources in Somalia.
taasi waxay ahayd agaasimaha hay'adda deegaanka ee qaramada midoobay Afrika waxaana ka sii horreeyay Ibrahim Maxamed Aadan oo qadka si toos ah ugu jiray aad buu u mahadsan yahay aan Facebook u galo kama Faarax Barre gaarisu jooga wuxuu yiri waan soo dhaweynayaa shirkaasi maanta Muqdisho ka furmay ee looga hadlayo ka ganacsiga dhuxusha sharci darrada ah waxayna ila tahay in xilligan ay ku haboon tahay ay ku soo beegnatay waayo dhirta la jaro dhuxulna laga sameeyo waxay keenaysaa in dhulka qarniyaal uu nabaad guuro wahagaag BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. halka weli aad nagala socotaan waa barnaamijkeena duhurnimo qodobada soo socda waxa kamid ah gabar abwaanad ahayd oo Soomaaliland ku xirneed oo maanta cafis lagu soo daayay balse haatan dalka Ruushka madaxweyne Vladimir Putin ayaa maanta loo caleema saaray markii afraad madaxweynaha Ruushka 18 sano ayuu madaxweyne ahaa marna ra'iisul wasaare ahaa taageerayaashiisa ayuu meel fagaara kula hadlay markuuna ka hadlay in magicii Ruushka uu kor u qaaday iyadoo taasi laftirkeeda ay taageerayaashu aaminsan yihiin и для решительных действий ради глубоких позитивных перемен внутри страны. taageeradani muhiim ayay inoo tahay si aan u difaacno mowqifkeena caalamka aan ka taagannahay iyo si isbedelada waaweyn ee ruushka gudihiisa ka dhacaya waddanka ruushku waa inuu noqdo mid casri ah oo wajahaya dhibaatooyinka wakhtigan adduunka ka jira si loo kordhiyo hoggaankiisa meelihii aan caadi ahaan ku xoog badnaan jirnay waxaan ku kalsoonnahay in haddii aan si wadajir ah u shaqayno aan gaari doonno natiijooyin wanaagsan meelaha aan wax walba lagu guulaysan Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Vladimir Putin waxa kale oo uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha ee dalkiisa. Главное, все эти годы страна развивалась. tan ugu muhiimsan waddanku sannadahan dambe oo dhan horumar ayuu samaynayay kama aanu jawaabayn oo keliya dhibaatooyinka soo baxayay laakiin horey ayuu u socday awooddiisana ayuuna kordhiyey ficilada dowladdu ku dhaqaaqday waxay suurto geliyeen in hoos u dhici uu joogsado soo kabasho ay timaaddo iyo soo noolaansho qayb badan oo dhaqaalaha ka mid ah guud ahaan dhaqaaluhu waxa uu muujinayaa calaamad koritaan isla mar ahaantaasna waxaa inoo suurto gashay inaan xaqiijinno xasilooni iyo weliba hab dhaqaale ballaarana oo dhab ah oo sicir bararkuna hooseeyo Сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией. hagaag haatanna Somaliland نعيمة أبوان قرنة أو دوان أي محكمة قبل كهرجيسة أي حكومة إسكاد وجود أواقد مدح بناني ذي سومالي لان 6 سنة وحبسها كل قنطي أي ساعة كحبسي قبيلة اللي جسوا دايي كتب عفي سوفي ذي مدحونا سومالي لان مصبيحي عبدي حركة جبدا أي كان هذا الحين بدن جارهم براه بالشدة يكود إيران ففاين توركاسنا وحينو هيا أحمد سعيد إيه sida hadda uu u cadeeyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Abwaanad Naciime Axmed Qorane oo hore maxkamadda gobolka Hargeysa ugu xukuntay 3 sanadood oo xariga ayaa maanta laga sii daayay xabsiga Gabiile kadib markii cafis uu u fidiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi sida uu sheegay afhayeenku waxa uu sheegay in qoyska ay ka soo jeedo Naciime Axmed Qorane odayaal ka tirsan oo aabaheed uu ku jiro iyo Naciime laftigeedu ay u soo qorteen madaxweynaha codsi ah in عفس لو فيديو حرقاسي لغا سامحوها أبوانada kadibna madaxweynuhu uu aqbalay sidaasina lagu sii daayay maanta xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed ayaa isaguna waxa uu cadeeyay BBC-da in Abwaanad Naciime Axmed Qorane lagu sii daayay cafiskaasi iyadoo uu sheegay in hore loogu xukumay bishii Maaris 15keedii 3 sanadood oo xariga kadib markii uu yiri sidoo hadalka u dhigay ay aflagaado dhaleecayn iyo ay u geysatay qaranka Soomaaliland iyadoo oo sheegtay uu yiri in Soomaaliland ay kala googooday oo haatan calanka Soomaaliya gobollo badan uu ka taagan yahay taasina ay ku mutaystay xarigaasi laakiin haatan cafiskaasi lagu sii daayay hay'adaha xuquuqul insaanka hore u dhaleeceeyay xarigaasi kuna tilmaamay inay lid ku tahay qofku inuu cabiro ra'yigiisa oo xor uu yahay ayaa gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka ee Hargeysa Guuleed Axmed Dalfac waxa uu soo dhaweeyay siideynta Naciime oo uu sheegay in ay kay talaabo hore loo qaaday isagoo sheegay in ay ka warqabeen horeba in ay wada hadal u socdeen sidii loo soo deyn lahaa oo ay xorriyadeeda mar kale ay u heli lahayd waxaan isku dayay qoyska Abwaanad Naciime Axmed in aan la xiriiro hase yeeshee ima suurto gelin Axmed Saciid Cige BBC Hargeysa وهجاك هاتنا وركوبا
ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen in ay weerareen ciidanka kenya ee jooga gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanka u dhow magaalada dhobley al-shabaab waxa ay sheegeen inay burburiyeen gaari ay ciidanka kenya lahaayeen islamarkaana ay halkaasi ku dileen tiro ciidanka kenya ah dhanka kenya waxay iyadu qiratay in laga dilay askar 7 gaaraysa sida uu soo xigtay wargeyska standard ee Nairobi ka soo baxa waa hagaag haatana dalka Hindiya maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa ka go'aan gaari doonta halka ay ka dhici doonto dacwad la xiriirta kufsi iyo dil keenay cara xoogan oo dalka Hindiya oo dhan aad looga hadalhayo gabar ka soo jeeda gobolka waqooyi ee Jammu iyo Kashmir ayaa la kufsaday kadibna la dilay bishii January ee sanadkan dambigan ayaa keenay kala qaybsanaan xoogan oo bulshada gobolkaasi ah warka amurtaasi la xiriirana waxa soo dirtay Yogita Limaye Faadumo Macalin Abuukar ayaa soo jeedinaysa sida uu kufsigu u dhacay iyo wixii laga damacsanaa ayaa ka yaabiyay dadka reer Hindiya booliiska ayaa sheegay in gabadhan 8 sano jirka ahayd ee ka soo jeeda qoys muslim ah oo reemi ah ay kufsadeen oo ay dhulka ku jiideen kadibna ay dileen koox Hindu ah oo doonayay in qabiilka gabadhaasi ay ka soo jeedo ay ka guuraan dhulkooda 8 nin oo dhammaantood Hindu ah ayaa ilaa haatan loo xiray falkaasi Jammu iyo Kashmir ayaa ah gobol ay ku badan yihiin muslimiinta dadka Hinduuga ah ee ku nool tuulada uu kufsigu ka dhacay ayaa aaminsan in si cadaalad darro ah loo beegsado waxay dalbanayaan in baaritaan heer federaal ah lagu sameeyo dembiga sababtoo ah waxay sheegayaan inaysan ku kalsoonayn maamulka gobolka dhanka kale qoyska gabadha ayaa codsaday in maxkamadaynta laga wareejiyo gobolka sababo la xiriira kala qaybsanaanta ka jirta halkaasi kadib dhacdadaasi maxkamadda ugu sarreysa Hindiya ayaana la filayaa inay maanta go'aan ka gaarto labadaasi arrin way maasantahay Faadumo haatana mooyaale Oromiya Soomaali muddo isku leynayay magaalada Mooyaale ee dhinaca Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa hadda wararkii ugu dambeeyay inay sheegayaan in dhowr qof oo Soomaali halkaas lagu dilay sidoo kale ganacsiga dhaqdhaqaaqa dadka ayaa sidoo kale xiran aadan xasan madnuur waa ganacsade Mooyaale degan BBC da ayuu arrimahaas uga warramay halkaad waa degayahay saaka wax xabada ma jirto laakiin meel oo magaalo wax yar ka deeqsan oo 10 kilometer oo kale meel Jaamuk la dhaaya xabad googoosa ka socoto moogi aad magaalada way degan tahay oo yaa xabada ku dagaalamayna walaalow Oromo iyo Soomaali isku dagaalamayaan maxaa lagu dagaalamayaa aadanow kulaal isku dagaalamaya waa dagaalkii soo jireen waa ilaa waqtigii dawladii Itoobiya oo aadiga soo gashay ka hor kadib dagaalka waa jiray marka waa soo socon jiray magaalada ma gooyin jirin jid ma gooyin hadda ilaa 9 bilood laga joogo jidkii u socda Disababa Soomaali ma mari kartid marka qof Soomaali intaas jid lagu gubay gawaarida lagu gubay waa la dhacay gudaha magaalada ka waran marka Mooyaale bartamaha magaalada ka waran tanka magaalada waxa aad shalay salligii weynaa oo booliska kililka shanaad waa la weeraray intaas maana la weeraray dagaalka ma dhagaxa ku bilaabaday kadib hadana xabada ku bedelmay shalay ilaa 5 saac dagaalka waa socday ilaa maqribki ilaa hal saacadeen dagaalka waa socday marka cidda wax weeraraysa waa ayo aadanow waa booranta iyo Oromada ka jiraan waa idinka Soomaalidana anag difaacan ku jirnaa ma la hubaa idinka laftirkiina waxa la leeyahay dab yar ma shidaysaan oo dagaalka dhinac baad ka jirtaan oo dad baad weeraraysaan wiligan dagaal aan qaadnay oo aan gal wiligan ma jirno waan soo weeraraa difaacan ku jirna wiligan waan iska xadin jirnay moogi waxaan u daandaansanay oo aan u tagnay wiligan ma jirto ma la arkin adigu maxaad ka shaqaysaa aadanow ani nin bacshiraan ahay nin business aan ahay oo degan magaalada ganacsigii saameyn ceenkay ku keentay colaadan ganacsigii 9 bilood aan soo dhaafnay wax ganacsiga kala socdo ma jirto magaalada waa xiran tahay wax soo gala oo dhinaca Oromada soo gala waa jira laakiin dhinacayni oo Soomaali wax soo gala ma jirto aadan xasan madnuur oo Mooyaale jooga ayuu kaasi ahaa waa hagaag haatana sheekadii la yaab ka lahayd gabar Maraykan ah oo ka shaqaysa xabsiyada dadka lagu dilo ayaa waxay leedahay waxaan u soo taagnaa intii shaqadaasi aan hayay 300 oo qof oo iyagoo la dilaya aan ka marqaati noqday gabadhan ayaa fariimo badan ay dadka u direen oo ay shaqadeeda ku durayaan balse mar ay hadashay ayaa waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay shaqadeeda isla markaasna ay ku qanacsan tahay shaqada wallahi waa la yaab ninba dhinac u badi ninba qofba qof buu shaqadiisa meel geliyay waa hagaag haatana ciyaarihii kooxda Chelsea ayaa sii xoojisay rajada ay ka leedahay inay u soo baxdo tartanka horyaalka Yurub ee xilli ciyaareedka dambe kadib markii ay xalay 1-0 uga badisay kooxda Liverpool oo ay kula dhashay garoonkeeda Stamford Bridge Chelsea ayaa hadda 2 dhibcood oo kaliya ka hoosaysa kooxda ku jirta kaalinta afraad ee Tottenham haatana baafintii
baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Siciid Xasan Samiira Cabdulaahi Jaamac. mahadsanid caasha. baafinta ugu horeysana maanta waxa ay naga soo gaartay xasan muuse yuusuf oo jooga muqdisho. waxa uu baafinayaa ruqyo maxamed yuusuf. waxa ugu wardambeysay sanadii 1990. haddaba haddii ayna maqlayso ruqyo maxamed yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xasan muuse yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 cabdinaasir aadan cabdiraxmaan oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa cabdifataax aadan cabdiraxmaan. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya 2015. haddaba haddii uuna maqlayo cabdifataax aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdinaasir aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Kismaayo ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 eber 5 eber 68. xaawo shariif xuseen oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa faadumo cabdulle muuse. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya. haddaba haddii ayna maqlayso faadumo cabdulle muuse amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xaawo shariif xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho. maxamed ibraahim guuleed oo jooga jawhar waxa uu baafinayaa jamaal ibraahim guuleed. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2004. haddaba haddii uuna maqlayo jamaal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed ibraahim iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jawhar. hodan nuur cumar oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa guuleed diiriye axmed. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Finland sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo guuleed diiriye axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo hodan nuur cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 muumin cali ismaaciil oo jooga jawhar waxa uu baafinayaa axmed cali ismaaciil. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2015. haddaba haddii uuna maqlayo axmed cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo muumin cali ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jawhar. sahre axmed jaamac oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa maxamed axmed jaamac. waxa ugu wardambeysay sanadii 2004. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed axmed jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo sahre axmed jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 eber 9 eber 7 mursal muuse cumar oo jooga Maxadaay waxa uu baafinayaa Ismaaciil muuse cumar. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2012. haddaba haddii uuna maqlayo Ismaaciil amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mursal muuse cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Maxadaay. nadiifo cabdirashiid afrax oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa najiib cabdi xaashi. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Zambia sanadii 2007. haddaba haddii uuna maqlayo najiib cabdi xaashi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nadiifo cabdirashiid afrax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho. waris xuseen kaahin oo joogta jawhar waxay baafinaysaa dadka kale ah xaali xuseen kaahin, xalimo xuseen kaahin, caasho xuseen kaahin, axmed xuseen kaahin iyo maxamuud xuseen kaahin. waxa ugu wardambeysay sanadku markuu ahaa 1999. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo waris xuseen daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jawhar ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526 saruuro maxamed maxamuud oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa hodan cabdalla cabdi. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2007. haddaba haddii ayna maqlayso hodan cabdalla cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo saruuro maxamed maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 mursal cabdulaahi mire oo jooga ceel cali waxa uu baafinayaa cabdiweli mursal cabdulaahi. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania 2011. haddaba haddii uuna maqlayo cabdiweli mursal cabdulaahi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mursal cabdulaahi mire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo
xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay celcali gareemo maxamed dhicisow oo joogta magaalada muqdisho waxa ay baafinaysaa hamaro maxamed dhicisow waxaa ugu wardambeysay sanadii 1992 haddaba haddii ayna maqlayso hamaro maxamed dhicisow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo gareemo maxamed dhicisow iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho deeqa garow colow oo joogto kismaayo waxay baafinaysaa suuban cali dakhar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya 1995 haddaba haddii ayna maqlayso suuban amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo deeqo barow colow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo cismaan cabdinuur isaaq oo jooga magaalada muqdisho waxa uu baafinayaa cabdiqadar cabdinuur isaaq waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika haddaba haddii uuna maqlayo cabdiqadar cabdinuur isaaq amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cismaan cabdinuur isaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho xuseen axmed cumar oo jooga isla kismaayo waxa uu baafinayaa xasan axmed cumar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2010 haddaba haddii uuna maqlayo xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xuseen axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay kismaayo cabdulaahi jaamac cigaal oo jooga magaalada muqdisho waxa uu baafinayaa maxamed jaamac cigaal waxaa ugu wardambeysay sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed jaamac cigaal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdulaahi jaamac cigaal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 7 eber 7 hal 353 xalimo cabdi daahir oo joogta kismaayo waxay baafinaysaa maxamed cabdi daahir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdi daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xalimo cabdi daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada kismaayo axmed barow muude oo jooga magaalada muqdisho waxa uu baafinayaa maxamed muude axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada hargeysa sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed muude axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed barow muude iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan maxamed oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa maxamed cabdi iyo ruqyo cabdi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan maraykanka 2010 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo maxamed cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada kismaayo abshir axmed ciise oo jooga muqdisho waxa uu baafinayaa dadka kale ah kowsar daahir cabdi axmed abshir axmed hani abshir axmed waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo abshir axmed ciise iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 3 7 7 saleebaan cabdulaahi cabdow oo jooga kismaayo waxa uu baafinayaa jaamac axmed yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kenya 1991 haddaba haddii uuna maqlayo jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo saleebaan cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada kismaayo sucaade xasan cabdi oo joogta muqdisho waxa ay baafinaysaa farxiye xasan cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka sacuudiga sanadii 2001 haddaba haddii ayna maqlayso farxiye xasan cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo sucaade xasan cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho wiile cabdulqaadir warsame oo joogta kismaayo waxay baafinaysaa fu'aad maxamed warsame waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kanada 2008 haddaba haddii uuna maqlayo fu'aad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo wiile cabdulqaadir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada kismaayo raxmo cusmaan cumar oo joogta muqdisho waxa ay baafinaysaa mahad cusmaan cumar waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yeman sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo mahad cusmaan cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo raxmo cusmaan cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6 3 3 8 eber 395
arbay xasan cusmaan oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa cabdulqaadir aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan etoobiya 2006 haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo arbay xasan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho cabdiqadar cabdikariim oo jooga afmadow waxa uu baafinayaa jiijo maxamed abow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlaysa jiijo maxamed abow amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo cabdiqadar cabdikariim iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afmadow baafintina maanta waa naga intaa idaacaddiina intaasaan ku soo ekaysiinayaa waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna waxaa noo ballan ah 5 galabnimo inta ka horraysa waa dhammaan bahdii b b c oo isku duubanoo idin leh nabadgelyo